axmed waxa uu go'aansaday 13 sano ka hor in uu wax ku barto waddanka Ukraine waxaana uu kulliyadda injineeriga kaga baxay waddankaasi jaamacad ku taal halkaas uu kula kulmay gabadh u dhalatay waddankaasi Ukraine oo markii dambe ay isguursadeen kadib waxay u dhashay 2 caruur darteed ayuu u go'aansaday in uu ku noolaado waddanka Ukraine Fatxiya waxaan isla dhiganaynay jaamacadda waxaan isku sii baranay xaflad dhalasho waxaan go'aansanay inaan qoys dhisano oo aan isguursanno axmed waxa uu ku hadlaa luqadihiisa afka carabiga waxa uu sii dheer luqadda ingiriishka iyo ruushka waxa uu bartaa mid ka mid ah luqadaha looga hadlo waddankaasi Ukraine ama luqadda waddankaasi si uu xiriir ula sameeyo ciidanka waxa uu sharaxayaa wariyaha wareysanaya erayada qaar ee Ukraine sida basasha waxa lagu dhaho iyo geeda kale waxa uu 3 sano la joogaa ciidanka waddankaasi Ukraine ee soodinta jooga ee cadawga la dagaalamaya waxa uu aaminsan yahay in Ukraine ay noqotay dalkiisii labaad waxana uu shaaca ka qaaday in uu u dagaalami doono ciidan la'aan waa nabad la'aan sanadkii 2016 waxa soo baxay amar sheegaya in ajaanibta ay ciidanka ka mid noqdaan ayuu yiri balse weli ma helin ayuu yiri Axmed jinsiyadda inkastoo caruurteedii ay halkan ay ku nool yihiin si ay nabad ay u helaan waxaan go'aansaday in aan ciidanka ku biiro Axmed niyadiisu weli waxa ay soo jirtaa dhinaca Suudaan inkastoo jiida dagaalka uu ka joogo waddankaasi Ukraine haddana siyaasadda Suudaan ayuu la socdaa oo afgambi uu ka dhacay ka oo xilka looga tooray nidaamkii al-Bashir ee muddada 30 sano maamulayay waddanka Suudaan tii ugu adkayd waxay ahayd weerar xoogan oo cadawga bilo ka hor ay kala kulmeen cadawga halkan waxa ay u dhaqmayaan si aan caadi ahayn iyagoo adeegsanaya rasaasta culus inkastoo diintiisa jinsiyadiisa ay ka duwan tahay kuwa Ukraine haddana waxa la aqbalay ciidanka Ukraine in uu ka mid noqdo markii ugu horeysay uu noo imaanayay waxaan isweydiinaynay waxa uu naga soo doonay haddase waan ku qanacsanahay in uu nala shaqeeyo ka taliye ahaan guutada aan hogaamiyo wanaag ayaan u hayaa Axmed si weyn ayuu noo shaqeeyaa Axmed waxa uu qorsheynayaa inuu dib ugu laabto Suudaan hadduu dhamaado dagaalka waxa loo soconayaa safarka Suudaan iyo Ukraine ilaa 5 saacadood waalidkiisa markii ugu dambeysay uu arkay waxay ahayd intuusan dagaalka bilaaban ee Damascus ka socda waxa uu hadda u rajeynayaa in uu helo dhalashada waddanka Ukraine inkastoo deganaanshiya haysto haddii aad daawatay warbixintani fadlan like garay share garay nala wadaag aragtidaada page-keeni haddii aad kala socoto dhinaca YouTube-ka Dunida News-na subscribe saaro channel